waxaa xilkiisii la wareegay taliyaha cusub ee qaybta 6aad dowladda federaalk Soomaaliya soo magacawday Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow waxaana munaasabada xil wareejinta ka soo qayb galay taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo madaxa howlgelinta ciidamada xoogga dalka General Madoowe iyo saraakiil kale taliyihii hore ee qaybta 6aad General Maxamed Cabdiraxmaan Timcade oo xil wareejinta ka hadlay ayaa ka sheekeeyay intii uu maamulayay taliska qaybta 6aad sidii ay u sugeen amniga deegaanada Koonfur Galbeed isagoona taliyaha ku sheegay in ay taasi ku timid qaabkii wanaagsaneed ay ula shaqeeyeen bulshada Koonfur Galbeed kulay ula socotaan isbedelku waa caadi saraakiishuna waa isbedeshaa maadaama aniga taliyaha qaybta 6aad ahay in muddana aan soo hayay waa lay bedelay waxa laygu bedelayna ma taqaanaan General Maxamed Sheekh yaa laygu bedelay shalay aniga Ibrahim Yaro bedelay isna bari waa la bedelaya intii aan joognay 12 bilood oo wada shaqaynaynay talay gudaha qaybta kaaga sheekay waxay ka kooban tahay 4 guuto iyo 17 urur ay ka kooban tahay qaybta 6aad 4 guuto iyo 17 urur waxayna kala degan yihiin 3 gobol Shabeellaha Hoose 2 guuto degan Baay 1 guuto degan Bakoolna 1 guuto degan ururadan waa 17 urur muddadii 12 bilood oo joogay waan xilkan hayay Ilaahay baa ugu cabaasay haadan baydaw cidna lagu dilin lana bistoolo lagu waxayn qarax lama sameeynin iskama iman shaqay ku timid taliyaha xilka la wareegay General Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow ayaa hadal kooban oo uu goobta ka jeediyay waxa uu dul istaagay in uu wax ka bedeli doono hanaanka maamul iyo ciidan ee uu ku shaqeeyo taliska qaybta 6aad isagoona ballan qaaday inta uu xilka hayo inuu xoog saari doono gudashada waajibaadka dowladda federaalk Soomaaliya u igmatay isla markaana ciidanka ka dhigi doono kuwa tusaale u noqda ciidanka Soomaaliyeed saraakiisha qaybta 6aad ee halkan fadhida waxaan u jeedaa in maanta xilkii waan dhamaanteen goobjoog ka wadanahay in xilkii qaybta 6aad aniga lagu soo wareejiyay taasoo aan rajaynayo inaan dhamaanteen isku si wada shaqeyno dalkan waa naga wada dhaxay dhamaanteen cid gaar u leh ma jirto mas'uuliyadda waa wada saaran tahay min dable ilaa iyo taliyaha ugu sareeya waxaa la rabaa inaan mas'uuliyaddeena qaadano dhamaanteen aniga keligay ma aha waxaan rajaynayaa inaan isku hadaf noqono ka adkaano cadowga gudaha iyo dibadda General Cabdixamiid Maxamed Dirir taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u mahad celiyay taliyihii hore ee qaybta 6aad sidii wanaagsaneed ee uu u soo shaqeeyay sidoo kalena ugu baaqay saraakiisha qaybta 6aad inay la shaqeeyaan taliyaha cusub ee qaybta 6aad loo soo magacaabay taliyihii hore oo runtii si aadan u hadlay wax badan soo qabtay aad buu ugu mahadsan yahay sida wanaag leh iyo meesha uu soo gaarsiiyay xilku waa meerto ninba maalin baa loo dhiibaya ragina halkaan fadhiyo kulligiin dadka noqon doona Ilaah baa laakiin qofku waa inuu ka tagaa wax la taaban karo birina lagu soo xasuusto laakiin inuu ka tago wax markii uu taga la yiraahdo warna kaxee balaayadu waa kan Ilaahay dhaafiyo qof walba marka mas'uuliyaddu taliyaasha kaliya ma dhamaantiin mas'uuliyaddu waa wada saaranta waxaan markaa idin kala dardaarmayaa sidii uu taliyihii hore Timcade uu idin sheegay oo uu yiri si niyad leh baan u soo dhaweynayaa taliyaha cusub Maxamed Sheekh annaguna waxa idinku boorinaynaa inaad si dhow ula shaqeysaan Cabdullaahi Nuur Aadan TV-ga caalamiga ee SABC TV Baydhabo